marka 15 seconds adduunka dhan ku weyso waa dhibaato soo maaha absolutely ninka hadda 15 seconds kamerada firi waa Yeah. 15 seconds waa 15 seconds ayaa wuxuu ku waayay it's Korea and Wax walba. family ha laakiin waxyaalaha noocan oo kale banaanka yimid Mm. waa in wax laga qabtaa waaye because arrinta markay meeshan ay gaarto Ah. waxay dhahaan carabtu balaqa saylu azuba wa sukuutu canhu mahana wa jubn Mm. daadka xadkuu soo dhaafay Sax. waa soo xalqa goostay in laga aamusa waa ceyb iyo doqonnimo iyo fulaynimo ma Sax. fahamtay arrimaha noocan oo kale in laga hadlaa waa waajib na saaran waaye because haddaan tooshka lagu iftiimin waxaa soo baxaya qaar badan oo saasoo kale ah marka tusaale las assume camal qaf oo anaka inta joogna camal wuxuu doonaya inuu guursado qaf oo Soomaali meesha walba ka joog sidee marka ogaan kartaa qafka inuu yahay qaf oo the right person maadaama hadda shakadan ay soo cusbanaad waa su-aal aad u fiican horta qaalido ka soo qaad tusaale ahaan intaa joogtaa Sax. waxaa laga yaabaa inaan qof jeclaatay oo soomaaliya jooga ama afrika joogta ama meelaha joogta waxaa muhiim ah in dhowr talaaba qaadid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ميل باجرتين سودو هذا برنامج كيني سومالي سوشيال ميديا مرة بكرة ساعتين بقينا يوتيوب جلوبال برنامج كان سعسي أنا وقال نور وحنا يلا قيب قادنا معنا عبد الله عاو برنامج هذا انترست له وحكى لنا أرمها سومالي ذا سبيشال أيام ويجان هسي بيفور ذا معنا عبد الله سودو السلام عليكم ورحمة الله وحن آدو سلامية دادوينها داوني برنامج كان وبرنامج كاني سومالي ذي السوشيال ميديا ويكلا أو عصب هدي مركز كواتها فضل نقص بير كم كان fikradaadana comment nagu wadaaga caawa waxaan ka hadlaynaa arrinta social media-da haysata isbuucan ee gabar Soomaaliyeed ku dhacday gabadhaas dhalinyaro ah oo magaceeda la dhaho Kaaho Cabdullaahi Al-Aswaseyda gabadhaas waxay ka tagtay wadanka Holland ee booqasho u tagtay xaajigeed oo degan magaalada Muqdisho gabadhaas ayaa soo bandhigtay dhaawacyo adag oo u geystay sida ay xusay odageeda waxaana dhacdadan ka naxdinta leh ka dhacday magaalada Muqdisho marka waa arrin lala yaaba sidaas daraadeed ayaan caawa hadlaynaa marka macalin haddii arrinta wax kaa weydiiyo من واتوما كاهو عبد الله حين تهي أرنتنا يده horta waa su-aal aad u fiican laakiin dadweynaha aan u sheego uma lihin aqoon gooni ah Personal, shakhsi ha. ah oo personal ah kaha cabdullaahi unless أنت waxaan informationka aan sheegi doono aan la wadaagi doono dadka daawadayaasha ah waa macluumaadka iyada ay bixisay la wadaagtay social media soo bandhigtay aan ka ogaanay xogo macnaha kala duwan oo ku saabsan online kaaho cabdullaahi waxay ka timid wadanka Holland oo Netherlands صح. da'deedu waxaa lagu sheegay inay tahay 27 years old 27 sano ما شاء الله waxaa la xusay in ay hore u soo guursatay gabar ay wadatay da'deedu ay tahay 11 sannadood oo weli qabta gabadhaasi baahiyaha gaarka ilaa caafimaad buuxa ha siiyo الله iyada iyo inta kale ee la midka ah أمين marka ay hadlaysay oo social media ay joogtay waxaa ii muuqanaya gabadha dhaawacyo badan oo soo gaaray wejigeeda waxaa ka da'aya dhiig dabcan dhaawac adag ayaa loo geystay sida iyada ay xustay macnaha xitaa ma ahayn midi ama wax la mid ah waxaa loo qaatay mutuleel runtii waa qofka isaga ah oo qof aad iyo aad u qalbi adag هذه عاد macnaha xaaskaada oo dibadda kaaga timid أنت أنت human ah oo dibadda soo kaaga dhaweyn timid lahayd. oo aad soo dhaweyn lahayd صدق جالس في هلا ubax aad ka horgeyn lahayd صح. hadiyada aad siin lahayd guri qurux badan aad geysan lahayd Hadiya. waqti aad la qaadan lahayd farxi lahayd Mm. inaad runtii dhibaato inta laga u geysato taa waxay tusaysaa in ay tahay macnaha runtii dhaawac dembi aad iyo aad u weyn marka waa ka xunnahay ninka isaga wuxuu sameeyey magaceena kuma hadlaayo absolutely nama matalo We don't tolerate. haddaan nahay ragga Soomaaliyeed runtii waana cambaaraynaynaa صح. boqolkiiba boqol runtii dhibaatada u geystay gabadha weli waxay xustay in meel cidla ay deganaayeen صح. oo xitaa hadday qeelisay ee hadashay ay adkaatay in dad ay u yimaadaan usoo gudbadaan الصومال حملنا أنا أقولها سكول دقيقين بس يقول عدو maya hadda meesha degana waxay tahay afi ninkan uu balangareeyey أوكي because sida iyada ay xustay abeen ay soo degato wuxuu ka qaaday baasboorka أوكي baasboorkii Soomaaliga ahaa iyo kii dibad macnaha oo يعني Netherlands-ka باسبورت ahaa توجه uu ka qaaday Mm. tan labaad macnaha waxa uu soo bandhigay in ay degaan xitaa uma sheegin sida ay xustay meesha ay degayaan صح. wuxuu dhahan waxaan kaaga dhigayaa surprise أوكي ما شاء الله marka meesha waxaa ka muuqanaya ninkan in uu sii abaabulay خليك يا بابو shaqada uu samayn lahaa iyo wuxuu qaban lahaa laana gabadha se u hadlayso ilaa hadda waxaan haysanaa waa hadalkeeda ay ku hadashay laakiin waxaa marqaati buuxda ah dhaawaca ka of course muuqanaya ها taas sal marka mubahna. taas waxay tusaysaa in hadalkay sheegayso uu yahay mid xaqiiqo ah oo macnaha dhab ah ninkan isaga ah macnaha wuu kasii baaraan degay meel wuxuu dejiyey aad waxaa guriga jooga kaliya gabadha xanuunsan oo la socotay iyada iyo waxaa kaloo joogay gabadh ka shaqaynaysay صح. marka ay qeelisay oo gabadhii shaqaalaha ay ku soo baxday way naxday صح. gabadhii shaqaalaha wax kama qadan karin ninkan wuxuu wataa mutlayn intaa la eg Eh. xitaa gabadha waxay xustay inta banaanka ay joogeen ها inuu dilku ku bilaabay
وقعن استعمالي أنا waxaan dhihi lahaa hadda inta ogaatay Mm. oo adoo banaanka jooga dhibaato uu ku geystay uu ku feeray ku rabaaxay in xaafadda aad ku noqoto maba ahaynba laana taa waxay tusaysaa inaad license u siisay inuu ku sii socdo macnaha dagaalka isaga ah marka kadib gabadhii waxay samaysay inay ninka waardiyaha u tagto oo guriga joo macnaha waardiyanayay waxaa laga yaabaa inay deganaayeen Compost meel oo noocaas oo kale ah ninkii markuu yimid uu arkay gabadhan dhiigga ka da'aya isagii ayaa naxay oo gadaal u noqday mise ma Yeah. mise wax laga naxay ahayn ha waa ka naxaysa of course macnaha gabar dhiig ka da'ayo diya kana xisad loo qof oo xaaskiisa oo dib xitaa dilay gabadha waxay xustay in uu damcay Mm. ninka waxaa ka muuqanaya cadaawadda macnaha gabadha uu qabay Ah. in uu damcay in isha uu ka bixi waxay dhahdaa dhiigga iga Ku dadka da'ayay cunamaya. ayaa isha daboolay bis Yeah. laakiin wuxuu rabay isha inuu xoog usoo bixiyo marka runtii gabadha waxaa soo gaaray dhaawac aad iyo aad xun waa ka xunahay ilaahay caafimaad buuxa ha siiyo ilaahayna ha ka dulqaado macnaha dhibaatada ku dhacday amiin ilaaha caafiyo gabadhaas dhiix dhib yaray marka ana waxaan ilaa xuquuqtan laga hablaha Soomaaliyeed hadduu nin gacan ku qaado run away before you go too late okay marka maxaa la dhihi karaa aas sababa la dhihi karaa dagaalka sidaan dhaawacan intaas la eg qaf inuu u geysto qaftiisii oo wadan dheer uga imaatay oo intaas ka maqan la dhihi karo wallahi horta arrintan marka aniga dhinac walba aan ka gadiyey aan ka fiiriyey kor iyo hoos wax khiil ah wax mamarsiyo ah wax keeni kara in gabadha u geysta dhaawac intaa la eg ma ii muuqanayaan صح gabadha hadday samayso waxa ugu xun qof baniaadan uu sameeyo waxa ugu xun oo qof dumar ay ku samaysa ninkeeda hadday samayso macnaha ma helaayo marsiyo u dhaawac intaa la eg ugu geysto صح absolutely no laakiin sida hadda la xusaayo iyadana hataa mar ay xustay macnaha waxaa laga yaabaa in ay tahay wax ku saabsan seer ninkan wuxuu rabay ama rajo ka qabay in dibadda loo soo kaxeeyo visa u xaraysay kenya geysay sida xustay visa waa socon waayey xitaa UK ay isku dayday inay u xarayso waa socon waayey marka waxay dhahday maadaama buuq uu batay dagaalku uu batay aan kala nasano waqti aan kala macnaha gaab aan kala qaadano adna soo fikir anna soo fikiro wixii aan samayn lahayn wax fiican waay fikir fiican waay ninkii taasoo ka xumaaday wuxuu is dhahay gabadhan ajanda wadataa qorshihii dibadda ayaa bixi lahayd meesha waa ka baxaya gabadhan waxaa laga yaabaa in nin kale ay aroosto ama ay gursato wuxuuna dhahay haddaan aniga aan ku calfan waayo nin kale oo ku calfanaya malahan marka meesha waxaa ka muuqanaya kind of maseer uu qabay ama cabsi uu ka qabay in gabadhan uu waayo inuu dhaawaca ugu geystay haddii xitaa gabadha ay dhahdo waa kaa tegaya kuma raba hadday dhahdo xitaa xoog ma aha xitaa haddii la dhaho waxa ugu xun ay kaga maseersiiso macnaha ay samayso xaq bala inuu dhaawac inta la egu geeyo waa wax waa yani wax maskaxda galayn qof bil aadan dhageysan mid kalena baado waxa laga yaabaa hadda tusaale niko oo qabtii Soomaali u jirtay mise qabto oo Soomaali u jira hadda sheekada cabsi abuurta mas dhigi kara oo dadka kale ay oo qabki doonay xataa inuu ka soo aaro Soomaaliya oo hadda gabadha hadda rag ahaan ama dumar ahaan lahayd laga yaabo inay xoogaa question mark noqoto ma aad iyo aad ani waxaan ahay dadka commentiga sometimes akhri haddaan waqti helo kiiba wareeya especially caseska noocan oo kale marka commentiga aan fiiriyey waxaa ii muuqday Soomaalida waxay ku yahay horta waa kaftan badan yihiin waa dad comedian ah qaar waxay leeyihiin iyo gabadha iga soo socotay ingiriiska iimaan lahayd ninkan baxar u geliyay gabadha iyada ahna ma ii soo socotay wixii ka dambeeya qaar waxay ku leeyihiin gabadhan ka sugaynay inay ka yimaadaan Mareykan oo kale samarka gabadha hadda ma soo socdaan because cabsi ay dareemayaan gabdhaha waxay dhahayaan dadan ka sugaynay xitaa rag ah inay xag ka yimaadaan ayaga laftooda question mark cabsiyaa jirta marka taa waxay keenaysaa dad badan oo dibadda rajo ka qabay guurkii dibadda iyo gudaha dadka isku milmaan isdhexgalaan isguursadaan in uu adkaan doono mustaqbalka because waxaa qadiyadan ay keenaysaa in cabsi badan ay abuurto oo runtii aad iyo aad u weyn sax waa even though ma arkino sheekada guurkiisaba uu nasiib calfi tusaale ahaan hadda عشر سنين ayaa laga baraka tusaale las azim amal qaf oo anka inta joogna amal cuduna inuu guursado qaf oo Soomaali meesha raba ka joogjo sidee markuu ogaan kartaa qafka inuu yahay qaf oo right person maadaama hadda shakadan ay soo cusbanaad waa su'aal aad u fiican horta qalido ka soo qad salahan inta joogta صح waxa laga yaabaa inaan qof jeclaatay oo Soomaali jooga ama Afrika joogta ama meelaha joogta waxa muhiim ah in horta la qaadid number 1 horta qofkan waa la hadlaysaa waa sheekaysanaysaa in aad ogaatid qofka dabeecadiisa inta awoodaada ah laana waxyaalo badan ku saamaxaya macnaha qofkan aad ku ogaan kartid dabeecadiisa iyo dhaqankiisa ama isticmaal psychology ahaan ama isticmaal other techniques waxay doontaa noqoto adiga ka shakhsi ahaan ilaa xad ogaan kartaa qofkan dabeecadiisa sida ay tahay number 2 waxa muhiim ah dadka loo yaqaan ahlul hal wal aqd ina weydiisid waa kuwe waa dadka culimada ah waa dadka aqoon-yahanada ah waa dadka odayaasha ah waa dadkan yaqaana ama nin ha noqdo ama naag ha noqoto marka dadka ahlul hal wal aqd dila weydiiyo arrimahan oo kale waa very sensitive waana u sheegaan uga hadlaan si daacad ah oo dhab ah oo xaqiiqo ah lama jooga xilli wax la soo qariyo
dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhahaan oo qofkan calafkiisa helo jaaniskiisa helo waxba kashifin wax noocaas oo kale ah laakiin taa waxaa waye ammaanadaada ay wax u dhimaysaa tusaale ahaan haddaan soo qaato xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhaa u timid markaasaa waxay weydiisay dhowr qofood macnaha midkay gursan lahayd nabiga si daacad ah ayuu wuxuu u siiyey tala ahaan wuxuu dhahay hebel macnaha gursan laanna usha kama dhigo garabka macnaheedu waa maxay dilkiisa badan waa u digay macnaha xaqiiqa laanna dadka hataa wax la weydiinayo marka arrimahan oo kale ay timaado waa inay xaqiiqada sheegaan you have to be honest because arrintan iyada ah mustaqbal dhan ayaa ka dhalanaya midda saddexaad qofka waxaa loo baahan inuu sameeyo due diligence macnaheedu ay tahay inaad samayso adig awareness-kaada badi macnaha qof xoogaal ah noqo macnaha meelo badan aad isleedahay waxaa ka helaysaa information qaraabadeeda ehelkeeda dadka ka agdhow macnaha asxaabteeda saaxiibadeed macnaha ama saaxiibkiis ama dadka agdhow nin inaag wuxuu noqdaba ila lamaanaha isgursanaya mid kasta kan kale inuu hubiya loo baahan yahay wax badan macnaha ka ogo wax badan ka warayso tusaale ahaan hadda inta badan waxaa dhacdo hooyooyin ama carruurta intay wadaan ee waddanka geeyaan oo laga yaaba carruurtaaseeti mentally they're not even fit you know and then dad kale ee carruur dad kale lagu daro ee dhahayaan oo haddaa guursada mise haddii gabar lagu daro ama wiil lagu daro way fiicnaanaya ama way fiicnaanaysaa taas khiyaano ma ahanayda walaa horta waa khiyaano waaye dino dad badan inta ka taga oo aqaanaa ama la wadayo wiilal ama la wadayo gabdho xagga la geenayo qaba macnaha iimo ama waxyaalo macnaha iin ah oo haddii qofka loo sheegay la dhaho qofkan qof noocaas oo kale ah si daacad ah xaqiiqa oo dhab ah oo qofka isaga uu doorto dabcan markaasoo kale dee si lakac uu sameeyo moogtahay laakiin qofka haddii loo qariyo taasaa dhibaato ah aan dadka soomaaliya jooga runtii khaasatan waalidiinta waxaan uga digayaa in ubadkooda ay siiyaan macnaha qof kale aan u qalmaynin ha noqoto caafimaad ha noqoto darajo ahaan ha noqoto dabeecad ahaan iyagoo macnaha fiirsanaya lacagta iyo biilka helayaan ama danaha gaarka helayaan so taasoo kale runtii aad iyo aad ayay xun tahay ilmahadan waxaa gelaysaa cuqbad macnaha aad u weyn fi dunya والآخرة I think waxaan xasuustaa a few years ago arrin ka dhacday I think UK in hada jeclahay wiil iyo gabar ayaa la isku daray I think they went Turkey marka tageen I think wiilka xoogay was mental issue aan gabadha ku diyaaro inay daacso Turkey waxasta si wanaagsan waxasta and the girl family sida la sheegay they were not aware yani situation kaas exactly so it can happen to anybody laakiin waxaan hubaa kulli dhinaca wiilka hadii la fiiriyo inay ogaayeen qofkan caafimaadkiisa intuu suu ahaa marka waana xaqiiqa ka noqotaa daacada ka noqotaa haddii kale khiyaanada noocaas oo kale hadda waa ammaano waaye hadda wax sameys dhan qasaare kale ma fahmin oo labada dhinac baa qof dhan meeshii ka baxayo inuu qofka haddii uu guursado kadib waxan ay ku soo baxaan depression ama wali ama wax la mid ah mental illness taasoo kale macnaha waa waxda yimid laakiin qofka hadduu hore u qabay qofka uu guursanayo uusan u sheegin uu qariyo taas waxay noqonaysaa waa khiyaana diinin dhaqanka dalkiisa la xalto saale qaf wuxuu qabay oo hadu ka qariyo ama laga qariyo labada dhinac la saa tusaale ama la tusaale wiil soo qaadana wiilkan gabadha oo lagu daro laakiin cudurro baarkino ama caafimaad ilaahayo waxyaalo uu qabay ayuu gabadha xaq ma u leedahay inay dhahdo saaxiib ana amdan wala horta macnaha jawaab guud ma bixin karno laana waxa loo baahanayaa case walba si gooni ah loo fiiriyo dabcan haddii arrintaas oo kale ay timaado oo gabadhii wax loo qariyo wiilkii wax loo qariyo waxaan dhihi lahaa dadka ahlu cilmiga ah ay jooga meesha ay joogtaan la xiriira oo la hadla una sheega se wax u dhaceen dadka noocaas oo kale ayaa nooga fiican inay fiiriyaan macnaha case by case laana hadda haddii jawaab guud aan bixino waxaa laga yaabaa in jawaabtiina aysan u qalmaynin u cuntamaynin ku dabaqmaynin cases aad u badan okay cool waa garnay okay maadaama ashatan kada guurka hadlayna yacni guurka waa maxay faa'iidooyinka uu leeyahay guurka wadamada fog laga sameynaya sida Soomaaliya qadqaadaan qaarna wadamada kale aadaan horta guurka meel fog loo aadayo horta qalida mu aadi lahayd adiga wal horta meesha ina single time oo la soconaay ani personally I'm old school taaganahay wax ka dheer maxay maamada waxayd geedka fog dhaxan ka macaliyo ha taas taaganaha soo marka Allah yaclam wax isbedeli karaan ma bil aadan lahay laakiin I personally believe it meesha joogtid qaf karaaso hadaa uu sabto in of the day you know marka no sameystinaysa you want someone you know live with you around with you fahmin soo qaf dheer hatta saal waddanka meelaha joognaa maximum can get holiday was 6 weeks a year صح so 6 weeks is not enough for me especially da shaqalaha shaqalaha ma fahmin so marka for now shaqala madama 6 weeks haysa maximum heli kara so 6 weeks ina baxo Soomaaliya tago mise meesha Africa tago marka an you know
horta dareemka meesha ka hadlaysid Ha. midda kale waxa ogaataa horta haddii calaf u yimaado Ha. jacayl u yimaado هذا أنا سوناريو ma xukumi kartid waxaa laga yaabaa adoo saa u hadlaya maanta بس بدل كلام maadaama qof rag aad tahay xabad aad ka heshay لأن لسه inay waddankeeda joogto waxaa laga yaabaa 180 degree inaad isbedeshid معقول marka xaaladaha qaarkood macnaha ma ogid hadda mid aan aqaanaa saaxiib aan nahay intuu joogay wuxuu tegay Dubai wuxuu dhihi jiray dibadda ma ka soo aroosayay maalmaha ka mid ah anagoo dukaan joognaa oo shoppingkii u dambeeyey samaysanayna waxaa soo gashay adiga gabar Soomaaliyeed oo aad u qurxoon ما شاء الله markii soo baxday kadib wuxuu dhahay niyo maxaan sameeyaa gabadhan aad aan u helay maalintaasna waa maalintii noogu dambeysay أبي حساب بس صنع maalintii قريزين xigtoo soo bixin صح waxaan ku dhahay dhowr saacadood haysataa إيه mana arki doontid إيه haddaa ka heshay Ha. go and speak to her of course ninka waa soo baxay waa ka soo daba orday صح waa ka daba yimid صح. gabadha uu la hadlay ما شاء ugu الله dambeyntii calaf isku yeesheen so meesha maxaa ka muuqana ninkii dhahayay aniga dibadda ma ka soo aroosayay markuu arkay qof alaaliya ولا لا of course why not and he changed his mind of course wadci kartaa waxa marka wadci kara waay dhulka dibadda aniga ma samayn lahaa horta ma ogi laakiin qorshaha ma igu jirto laakiin faa'iido ma leeyahay waa maxaa faa'iido u leeyahay dhowr faa'iido u leeyahay horta midda koowaad oo faa'iido u leeyahay waxay tahay waa dhaqan ahaan waa cultural لأن qofka markuu inta uu ka tago uu wadankii tago waxa ugu weyn uu u tagaa waxay tahay inuu dhaqankii caadooyinkii afkii luqadii inuu ka agdhawaado صح qof isaga macnaha qofkiisa ah oo isfahmayaan oo isku luqad ay ku hadlayaan isku dhaqan ay yihiin صح. inuu soo gursado which is amazing absolutely aad iyo aad ay u fiican tahay taas midda koowaad midda labaad waxaa laga yaabaa dadka xagga joogan ay faa'iido ugu jirto oo ay helayaan legal macnaha way ay ku yimaadaan absolutely wadamada dibadda because qaar badan oo ka mid ah runtii inay bartaan inay jaamacado aadaan inay shaqo ay helaan inay isbedel ay sameeyaan ay rabaan صح marka taa waxay keenaysaa in qofka calafkooda ah uu sabab u noqdo inay ka soo baxaan Soomaaliya oo ay dibadda ay yimaadaan inkastoo aniga hadda aan aaminsanahayba xilligii qurbaha la imaan lahaa inuu sii dhammaanayo oo la joogo xilligii wadanka gudaha aan ku noqon lahayn baa loo noqonaya midda saddexaad aan isleeyahay faa'iido weyn way ku imaanaysaa waxay tahay isdhexgalka dadka bulshada toos bulshadaha laana haddii wiil ama gabar uu yahay xagga uu tago uu soo arooso macnaha labadii famil ayaa isku wada furmaya because waa dad Soomaali ah waxa xididnimo macnaha abuurmaysa wana waxyaalaha ugu waaweyn oo Soomaalida dhaqankooda ka mid ahaa markay dagaalamaan markay isqabtaan dad waxay ahaayeen gabdho isisiiya si ay u xididaan oo cadaawadii meesha jirtay looga saaro oo looga bixiyo aan sidoo kale waxaa laga yaabaa xagga markaad tagtid optionka waa banaanaya because intaasoo milyan oo qofooda joogta imagine مقدشة optionku waa xadidan yahay imagine in somewhere in Hamar ama ha noqoto dhinaca gabdhaha ama ha noqoto dhinaca wiilasha optionku waa xadidan yahay laakiin xagga waxay tagi waxay helaysaa nooca u baahan tahay dooqada ka ciyaaraysaa marka gabdhaha iyo wiilasha waxaan dhihi lahaa haddii calafku idin kaxeeyo xag idin geeyo ha ka labalabeyna hore u socda seems like hadda waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan baxnaa but don't worry aniga ma dhihin laakiin waxaan ka jawaab su-aasha weydiisay faa'iidooyinka maxaa ka mid ah so fiil hadda waddanka ama UK aad joogtid marka banaanka u baxdid meeqa qofood aragtaa oo Soomaali ah rare it depends waa kooban yihiin hadda let's say today's Friday ahead shaqada soo noqday I have not seen anybody I mean maanta idan qof ma arkin iyadoo saasay tahay UK waa wadanka Soomaalida ugu badan wadamada ugu Soomaalida badan waaye especially London waxaa ku nool 5 million especially London laakiin marka Soomaaliya aad tagtid meel ka mid ah ama xitaa Afrika aad tagtid meel ka mid ah waxaa arkaysaa intaasoo qofood oo Soomaali ah dukaanka gashid maqaayada gashid gurigaa tagtid xaaladaha qaar waxaa laga yaabaa dadka ehelka inay ku keenaan ku dhahaniyo dibadda ka timide singalna waa tahaye wallaahi waa wax fiican waaye wax fiican dhima 2026 waxaa lagugu sharafeeyaa gabar ama dabcan lamaanahay ku xiran tahay well shakaas engageka waa u soconaa iga hor dhicin marka okay hadda taas dhanka faa'iido waay haddii lacag laga iyo dhanka khasaarada waxa khasaare miyuu leeyahay gurka oo dadka wadamada laga aaday laga soo guursanayo والله حتى قاعدة جلتها قاعدة وحواي وحلبو إذا له خسارة ولا يهين صح مركز دي لنا خسارة هالفيري خسارة ما لهذا هاي يس معناها ريسكو حق إيمان كرا أو لنا أبيوس كا صح وأنا مدة هذا كنت بينا شيء كذا أنا كهذا إنه كها عبد الله يقبلها لميت كا كل عذي أرنتن رقم كل عذا وكل عذا حدا قال كود معناها وأرجعني few times أو ضد سومالي أرجع lagu mideeyay lagu gubay lagu shubay saliid lagu shubay biyo oo dibadda jooga ama gudaha jooga
laakiin inta badan gabdhaha ayaa u nugul markay dhibaatada noocan oo kale ay timaado wax kasta walaa tinkii way yar tahay gabdhaha inay I think it's the last- wax noocaas oo kale ay sameeyaan inta badan waxaa keena gabdhaha markay sameeyaan waa maseer waaye Ha. laakiin ragga waxaa laga yaabaa inta badan waxaa keena maseera ka mid ah mental illnessa ka mid ah dabeecad xumaa ka mid ah nacayba ka mid ah runtii waxyaala badanaa keeni kara inay ragga ay sameeyaan صح so taas waa mid ka mid ah midda labaad waxaa ka mid ah dadka dibadda jooga hadda dhaqankana la qabsadeen especially qofka markuu dibadda muddo uu joogo macnaha dadka aad la joogto dhaqankooda ayay qaadanaysaa هذا كسوق قاعد imitating them yeah marka albaabka qofaa ka qabato Eh. wuxuu ku leeyahay thank you صح. hadduu ku dhihi waayo waa xanaaqay yeah horta waxa waaye sababtoo waa maxay because oo la you get qabsatay used to how Allah Ayay get used to, Mm. yeah? haddii qofka waxaa siiso wuxuu ku leeyahay waa mahadsan tahay Ah. hadduu ku dhihin waa xanaaqay waxaa leedahay maxaa waa mahadsan tahay inihi weyday hadduu ku dhiwaada dhehaysid Adaa in dhahayo. offensive way yeah ama wejigaa tusaysaa Aha. body language-kaada صح ها laakiin markaa soomaaliya aad tagtid Mm. ama afrika aad tagtid thank you iyo waa mahadsan tahay iyo welcome iyo wax lamid lagama yaqaan بس هذا ma aha inay xun yihiin oo صح. qalbiga xumaan ay ka qabaan ها ama nacayb ay ka tahay laakiin dhaqanka ahayn so xaaladaha qaar waxaa imaanaya waa isku dhac oo dhinaca dhaqanka ah صح. qofka inta jooga waxbuu filayaa qofka xagga jooga waxbuu filayaa qofka inta jooga caadooyin dhaqan la qabsaday qofka xagga jooga caadooyin dhaqan la qabsaday wax inta normal ka xagga wax normal inta ka caadi ka ah xagga caadi ka ahayn wax xagga caadi ka ah inta caadi ka ahayn صح واي marka taasaa waxay keenaysaa in qofkii uu ku dhaco cultural macnaha shock oo runtii lama filaan ay ku noqoto midda saddexaad oo runtii aan is dhihi karo waxaa ka mid a waa legal issues Mm. xaggaa tagtay qofaa ka heshay waa jeclaatay waa isgursateen waa heshiiseen wili gabar wuxuu noqdo صح. inaad soo kaxaysa u baahan tahay legal system imaanaya waa la diidi karaa ها hadda ka soo qaad ninkan waalan ee marka waalan aan leeyahay dabeecadiisa aad xun Ha. dhaqankiisa aad xun قصد maraykanka إيه. donald trump ضل ها macnaa waxa uu diiday dadkii dibadda ka imaanayay Mm. intaasoo kun oo qofood oo soomaali ah iyo ajaanib ah ayaa waxay sugaayeen in lamaanayaashooda la midoobaan ها la midoobaan صح isagana cagtuu saaray qaar hataa joogay ayaa laga yaabaa inuu celiyaba so taa waxay keenaysaa dad badan oo ku haminayay Mm. in lamaanayaashooda u dacwoodaan ay keensadaan in systemka u diido من 4 So years that's- صدح سنة وهرسن laakiin 3 sano dad isjecel kala maqan yihiin yeah انا هار waa haad waa adagta iyadoo weliba fursadda ay helayeen sanadkii ay ahayd hal mar هالمر yeah Yeah? but you know Um, maadaama sheekada ka hadlayna oo rag iyo dumarka islaynaya inta badan raggu ma arkino gabdhaha ayaa wax la gaarsiiyaa laakiin marka la dhaho marka dadka guursadaan raggaa inta badan dadka waashan waaye waa arkaya nin waashay laakiin ma arkaysa nin oo naagtiisa dishay laakiin waxaa rabnaa inta badan naag ninkeeda dilay sababta ma taqaanaa Mm. markay dumarka ay timaado horta dhinaca waalida iyo depressionka Mm. ma ku badnaa صح. laana gabdhaha way hadlaan ha haddii anaka waxa waaye haddii dhibaato ay ku dhacdo Mm. ehelkay u tegaysaa saaxiibay u tegaysaa waa hadlaan xitaa markay hadalkay timaado gabdhaha waa ka hadal badan yihiin ragga waxaa la dhahaa daqiiqadii miya intaas 2,000 oo macnaha mise saacadii ahayd 2,000 oo eray ayay ku hadlaan Ah. raggana waxaa laga yaabaa inta haafka inay ku hadlaan so gabdhaha taasaa waxay keenaysaa xitaa markay dhimashada caadiga timaado Ah. you know waa qadar ilaahi subxaana Allah wa tacaala yacni. laakiin inta badan markaa aafilisid ragga ayaa dhimashada ku badan waxa keena waxa waaye waxaa keena waa dagaalada waxaa keena pressure ka badan waxaa keena ma fahamtay waxyaala badan noocaas oo kale dignity ilaas ay- madax dhulka cishanaysa carradka ay cishanaysa qabsadaan ha mid comedian ah wuxuu dhahay haddaa xaafadda aafilisid islaamahoo dhan waa joogaan Mm. odayaasha badankoodana waa bixin oh yeah that's waxa dhahay PR wadran PR yeah which is macnaha It's true. true hadee si loo fiiriyo ha marka ragga inay xoogaa ay waashaan waxaa keenaya waxay tahay in wixii ay qarsanayaan soomaalida waxay dhahaan wixii aad qarsato ay ku qarsadaan way ku qarsadaan marka waddanka hadda aan joogno oo ama waddamada hadda aan joogno waxay sameeyaan group macnaha meet abis Mm. ka soo qaad dada dhibaato qoys macnaha ay haysataa gruubyaa isu imaanaya waxay ka hadlayaan dhibaatada haysata isma taqaanaan Sah. laakiin meel ay isugu timaadeen taa waxay keenaysaa qofkii inuu macnaha hadlo wixii gubayey Iska- uu la yani wadaago clear the dadka. chest ha mana yaqaanaan Mm. ma fahamto waxaa isu keena waa duruufaha ka dhexeeya dhammaantood waxaa laga yaabaa in loo sameeyo counseling macnaha dad aad la hadlaysid meeshaa tegaysa waxa lagu leeyahay iska hadal macnaha dhibka ku haysta sheeg just release shoon, ha just adiga bis hadal taa waxay keenaysaa caafimaad inuu qofka u dareemo laakiin soomaali haddaan nahay stigma ka tahay anaga agteen waxay ka tahay stigma Mm. ceebay ka tahay Ah. inuu qofka dadka wixiis la wadaago inuu Sah. qofka dadka la sheekaysto inuu dad macnaha marka taasaa waxay keenaysaa raggii inay ceshadaan ay cunaan iscaburiyaan dhibkoodii ugu dambeyntana wixii waa qarxayaan inta badan you know tirkob la sameeya dadka isla sheekaysta ama ishukaansa ee banaanka iskugu baxa iyo dadka familada isku daraan sidii loo yaqaan arrange marriage
keebaa labadu successful noqdo labada dhinac marka isku fiirsho والله horta qaalida waxaan ku hayaa tirakoоб cajiib ah صح anaga inta badan waxaan aaminsanahay lamaanayaasha isxusha هذا last rule in guurkooda uu waaro صح inta badan uu shaqeeyo مم. laakiin marka tirakoobka aa fadhiisid آه. oo bilcaks دعوة هذا حتى هو انت محي. مشاكل اكو وضعت عندك tusaale aan ku siiyo india oo kale Hey. macnaha 90% dadka waxaa lagu sameeya arrange marriage صح. Yeah, 90% واو and 1% oo ka mid ah ayaa fashilma افضل او ضد الاسكو دري la isku daray ha 99 of them so macnaheedu waa maxay 90% Ah. boqolkiiba 10 ayaa isdoorta اوكي صح laakiin boqolkiiba 90 والاسكو دري waa la isku habeeyaa macnaheedu waa maxay familka isla doontaa saaxiibada isla doontaa ehelka isla doontaa صح. and 1% ayaa fashilma walaba Oh. aad u weyn waaye قيبتو كيف فشل امريكا ما فشل امريكا شكلها maya ساشا 90 اوكي واو 90 1 boqolkiiba hal Eh. dhinaca kale markay timaado oo dibadda adduunka intiisa kale Ah. boqolkiiba 53 ayaa wuxuu yahay arrange marriage اوكي adduunka laga hadlayaa rekoobkada ay sameeyeen an boqolkiiba ilaa iyo 6 iyo 6.3 ama 6.3 ayaa fashil marka taa waxay tusaysaa in dadka isdoorta oo isxusha guurkooda uu ku badan yahay fashilka meesha dadka arrange ah oo la isla doonto inta badan u shaqeeya marka mustaqbalka waa cid la hadalnaa dhahnaa صعب شكلها الرجل سوق بدر ثانيه anaga inta badan waa diidnaa moogta waxaan dhahnaa oo aniga qofka anaa dooranaya anaa xulinaya anaa raadinaya anaa kan ah laakiin markaa fiirisay tirakoobiyada ceebna ma aha runtii hadda khaasatan wadamada hadda aan joogno qaalido صح. familada dibadda jooga badan isma yaqaanaan waxaa laga yaabaa in aabaha ay u joogaan gabdho ama wiilal صح. waxaa laga yaabaa in dad badan ay joogaan oo ma fahamtay diyaar ah haddii wixii aan laisla raadin laisla doonin waxaa imaanaya in dad badan ay noqdaan guur la-aan ايش اللي يجينا مش معناها نقول سبته ايه marka عرفتي وعيرتها waa yar tahay aad iyo aad markaan waxaan dhihi lahaa dadka degan xaafadaha dadka degan ma fahamtay isku dhow isyaqaana in ay wada hadlaan qofkii gabar u joogto qofkii wiil u joogo ceebna ma aha in isla doono la dhaho gabadha ii joogta wiila ii jooga isbarta wada hadla hadda iska heshaan waa ka hadda iska heli weydaan qasab ma aha lama qasbaayo laakiin waa loo soo bandhigaa haddii loo soo bandhigo isdoortaan filahi alxamdu haddii loo soo bandhigo isdiidaanna khalaas waa kala soconaya dhibaato ma aha هاد فيلين yes اوكي كول داسي qaybta inta soo bixina marka intaan ka bixin waxaan walaasheen kaaho waxaan ilaagu baryaynaa inuu dhaawac u dhayo arkino inay ka bagsato aan ugu dambeyntiina inay cadaalad hesho marka hadda waxaan u guurinaa qaybta labaad qaybtan waa sheeko cajiiba waa marka arkaanba waa la yaabay sida dhammaantiin laga yaabay inaad wada aragteen maalmahan waxaa socday muuqaalo ay leeyihiin waa caruur yar yar gabar iyo wiil oo isla dhashay oo xumaan sameeyeen muuqaaladaas oo iska duubeen haddana waxaa arrinta ugub ku ah dhaqanka iyo dalkeena Soomaaliya oo aan markii koowaad aan arkay marka arrintaas ayada leh waana fal xun marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ma arkin taas inuu ka hortago marka macal arrintan ayada ma aragta hadda aragtayna wax yar oo faahfaahin ma naga siin kartaa horta arrintan iyada ah ma aragtay ma arkin okay yarna ma hina arko qofna kuma waaninayo inuu arko absolutely runtii waa wax aad iyo aad u xun tan kale waxaa la yaabaa aad ula yaabaa dadka Soomaalida markii waxan loo sheego inuu qof walba uu dhaho oo xageen ka soo fiirsadaa xageen ka soo aragtay waa ceeb waxyaalaha noocaas oo kale ah waxaan ka dhageystay dad daawaday inuu haddii aad tahay adiga qolyaha amniga aad ku qasbanta inaad daawatid haddaad tahay wariye aad u baahan tahay inaad xoogaal wixii aad noqotid aad soo gudbisid haddaad ma fahamtay somehow shaqadaada ay saameyn ku leedahay markaasoo kale macnaha okay waa la fahmi karaa laakiin u daawo iska daawo waa mamnuuc waa xaraam waa dembi waa especially waa ciyaal waa daayir aad iyo aad ma fahamtay marka ani waxaan dhageystay dad wariyaal ah oo xoogaal ah oo arrintan ka hadlayay oo dhahay anagaa soo daawanay marka ay ka hadlayaan macnaha waxay sheegeen waxaad dabcan ma sheegi karno ma ka hadli karno aad u farxun tahay laakiin muhiimadu waxay tahay dad anaga macnaha runtii Soomaali ah oo dhiigeena ah dadkeena ah da'yar adiga waxa laga hadlaya 7 sano ilaa 9 sano 10 sano wiil iyo gabar inta kaliya ma isla dhashay oo xumaan sameynaya macnaha waa wax aad u xun wali dadka meesha ka hadlay oo aan ka soo dhageystay qaarkood waxay xuseen in dad kale ay joogeen oo codkooda ay maqlaayeen I just want yaa ka duubay that was exactly yaa ka duubay yaa telefoonka siiyay yaa soo dhiga online waa su'aalo badan oo mudan in la isweydiiyo yaa ka arkeen ma waxay arkeen gurigooda ka arkeen miya
والله wax la horta tusay miya maanta dhibaatada social media uu ku hayo dadkan waxaa ka mid ah arrintan iyada because dadka social media daawada xumaan oo dhan meeshay taallaa صح. aan waxaan shaki lahayn hadda sida la sheegayo ciyaalkan waxay samaynayeen oo waxyaala ay ka soo arkeen online ma aha kaliya waxay alifanayaan ma aha sida wiilku u hadlayo weli gabadha waa la khasbayay ها wiilka wuxuu ahaa mid yaroo aad u dhib badan u ahaa sida la sheegay but you know the, I oo thought ficilka hataa ay samayn lahayd gabadha ها isaga u sheegaya oo samee dhahaya waxaas miyana waxaan block list ku jirin Soomaaliya aan hadii inta badan VPN waa la isticmaali karaa waa la qafki waa isticmaali karaa laakiin cunuga yarka VPN muu karnaa mise kale Soomaaliya open iska waa arrimaha loo baahan yahay dowladda Soomaaliya iyo shirkadaha bixiya internetka iyo khadka bixiya in arrinta iska saaraan mas'uuliyad dadku waa laga yaabaa qaarkood inay wax fahamsan yihiin isticmaalaan VPN laakiin dadka badankooda VPN ma yaqaanaan dadka badankooda VPN ma awoodaan dadka qaarkood VPN wuxuu yahay ma fahmayaan صح marka shirkadaha bixiya khadka waa inay arrintan iyada ah ay blog ay saaraan oo ay isku dayaan sida u joojin lahaayeen midda kale dowladda Soomaaliya dimo ta Soomaaliya waa gaarina tusaale hadda usoo noqon arrinta ayada tusaale gudugooda usoo noqon waalidiintooda markino maxaa la gudboon arrinta ayada horta waalidiinta aniga meel cid kama eedenayo laakiin waxaan qabaa su'aalo aad u badan absolutely in la isweydiiyo jawaab u baahan yihiin waalidiinta ilmahan xagee ku ogaayeen number 2 ficilka ay sameeyeen ma aha markii koowaad telefonka iskala caruur yar telefon smartphone selo si kala qaabka u sameynayeen qaabkay u hadlaayeen sida la xusay la sheegay dad kale la joogay macnaha sidee ku dhici kartaa ilmahaadii in dad kale ay la joogaan adigina aadan xogaal ahayn war aadan u ahayn waa anada su'aal talamaad ilmaha ma la sheekaysatay ma weydiisay macnaha waxay qabteen waxay sameeyeen aaway dugsigii iskuulkii la aaday aaway maxaa meel loogu sheegi waayey yaa siiyey telefoonka intuu ka yimid yaa soo dhigay khadka online su'aalahaas waxay u baahan yihiin in wax la soo marka waalidiinta laftooda macnaha hadda waddankan fiiriya hadda aan joogno haddii ilmaha iskuulka ay tagaan dhibaato lagu arko waalidiinta waa la qabtaa waa la weydiiyaa qaarkood xabsiga la dhigaa waa la xiraa sababto waa maxay dowladda macnaha waajib ayay ku tahay in ay difaacdo ilmaha yarkaa marka waalidiinta waxaa loo baahan yahay in su'aalo badan dadku ay qabaan inay ka jawaabaan see waxaan ku dhaceen see ku ogaan weydeen ilmihiin oo waxaan samaynaya yaa la joogay oo dadkii meesha joogay goobjoogga ahaa waxaan ka duubayay ahay yaa soo dhiga online haddii iyaga ay leeyihiin social media sidee ku dhici kartaa ilmahaada inay lahaadaan social media ay yaqaanaan qaabka wax loo soo dhigayo oo weli da'da ay yihiin apparently marka diyaarna programkan soo google galay soo jeedinay wiilka social media leeyahay and he wuxuu dhahayaaba sida meesha ku qoneed halii share garaya surprisingly wiilka balhamiya social media that's why he's under age يعني ايش كسبه قارين بو سيدو وفرق ما تاس هذا صح تهاي او سو اوغاتي وفيلي كيمد بين والدك بين دولده because حتى بين على السوشيال ميديا because هذا السوشيال ميديا تيك توك طبعا قف كلا افر كمان لما اوغلا قف اند ايج انه سميستو ونا اكون سميستو لما اوغلا Soomaaliya waa taqaanaa de waalidkiis sida adigu u soo daawatay waa u daawanayaan waa loo sheegayaa way xuga qaban waayeen xukuumadda Soomaaliya ma leedahay sharciyo gooni oo qabanaya ciyaalka daa'irta iyo waalidiintooda in lala xisaabtamo xukuumadda Soomaaliya ka xuquuqinta ma leedahay wallahi horta ma leedahay nidaam aad weyn ma lahan warun laakiin waxyaalaha noocan oo kale banaanka yimid waa in wax laga qabtaa waaye because arrinta markay meeshan ay gaarto waxay dhahaan carabtu balaqa saylu azuba wa sukuutu canhu mahana wa jubn daadka xadku soo dhaafay waa soo xaga goostay in laga aamusaa waa cayb iyo doqonnimo iyo fulaynimo ma fahamtay arrimaha noocan oo kale in laga hadlaa waa waajib nasaaran waaye because haddaan tooshka lagu iftiimin waxaa soo baxay qaar badan oo saasoo kale ah oo tusaale xun ay noqonayaan marka waa in laga hortagaa waaye marka hadda usoo noqono dadka muuqaalada yani social media isticmaala ee muuqaalada gudbinaya ama share gareynaya ayaga dhankooda yani maxaa la gudboon horta Soomaalida aniga waxaan aaminsanahay dadka adduunka ugu munaafiqnimada badan inay ka mid yihiin لأنه قفل بأركت حكله وحن وحويين وحن ما وناك. same time ورادنا كليب يدا نوع عنو كلا دتك أجوب بدن أي داوضة وتاوزنس واحد داونا أيه مشاهدين داوته الدنيا داوضة يا داوضة وحن ونكلا داونا وحن أركيسا إلا سمينا يا شر قرية وحن أركيسا قفك كومنت إنه ليه وحن أنت كسر داوتين أنا صار داوضة بالله عليك يعني سيكون عكتا عيال دائر أو دأ حمان فافناية ماشى كقبلنا هيذين إنها فافسان إنا شير تابتان إنا أسعبتنتان إنا دتك لو ذاكتان إنا هذا حاجة كسر داونا عيب عليك يعني رنتي آذ أفرح أنت وحنا وكله
waxay tusaysaa macnaha nifaaqina intuu gaarsiisan yahay صح. wana waxyaalaha noo diidaya in wadan ahaan aan soo kabano bulsho ahaan aan soo kabano dhibaatada aan ka soo baxno laana waxaan oo kale haddii ay naga dhacayaan normalize كده of course caadi ay noqoto xitaa gaalada ah ayaa waxaan agtooda waxay ka tahay dembi aad u weyn fama baaluk anagoo muslimiin ah oo diintii haysana dhaqankii aw diintii aw wanaagii at the window these days waxaan runtii waa qadiyad aad iyo aad u foolxun tan kaliya ma aha maalmo hadda aan fogeyn gabadhii caaisha ilaahay ha u naxariistee dhibaatadii loo geystay oo ragga soomaaliya ay sameeyeen xagge ku dambeeyaan aw cadaaladii aaway runtii gabdhaha soomaaliya waa ku dulman yihiin midaa waxa uu gubayaa gabadh soomaaliyeed oo uur leh ilaa hadda ma helin cadaalad midaa wuxuu dhaawacaya gabadh soomaali ah oo macnaha xaaskiisa ah ilaa hadda ma helin cadaalad قلت الصومالي لنا عدالة dadaa waxay dilayaan soomaaliya hadda culimmada markay leeyihiin mataqaanaa dowladda macnaha waddamada gaalada ee muslimiinta aan ahayn laakiin cadaaladda ku dhaqmaysa way ka fiican yihiin kuwa muslimiinta ah ku laakiin dhaqmayn aan ku dhaqmayn cadaaladda. cadaaladda صح. annaga haddaan soomaali aan nahay waxa naga maqan cadaalad ilaa aan helna cadaaladna wax ma toosaagan wax ma hagaagayaan soomaaliya maanta meesha waxa dhigay waa cadaalad daro waaye hadduu waxaa laga yaabaa dadkan dhibaatada samaynaya dadaa macnaha difaacaya ta kale aniga waxaan laga yaabaa qaalid oo mataqaanaa qof walba wuxuu dhaaminayaa kitaabka ilahi wax lagu xukumo qof walba لكن wuxuu u baahan yahay cadaalad halsame laakiin maalintii isaga ay qabato diyaar ma aha qaar waxaa arkaysaa بوغ qaar waxaa arkaysaa khamiisyo wata qaar waxaa arkaysaa wadaadda ah oo difaacaya qofkoodii oo haddana sunnadii ay ka muuqato diintii ay ka muuqato waay macnaha xaqa waa xadiiska nabiga muxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay haddii faadime ay xaddo wallaahi gacanteedan goynayaa alcadaala waddamada maanta aan joogno waxa lagu kala badbaada waa maxay alcadaala qof madaxa wax samaynaya waa la xiraaya qofaa dembi gelaaya waa la qabanaya waalida ilmihiisa dembi ka samaynaya waa la qabanaya cadaaladdaasaan ku noolnahay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay cadaalad waa inay ka soo bilaabataa meesha ugu hooseysa ma aha keliya xukuumadda inaan dhahno samaysa cadaalad adiga markuu qofkaada wax sameeya dembi oo aad difaacaysid ma tihid caadil لكن dadka ayaku disho ma gaari karaan waxaa laga yaabaa in dadka leaderska waddanka xukumo waa inay sharci noo sameeyaan dadka dhan la wada raaco sababtoo taas والله وارون لكن waxaan aaminsanahay mataqaanaa waxa markii ay hoos ka soo bilowdaan hadda anaga muslimiin aan nahay diintan macnaha ma sha Allah jecelnahay inaan ku dhaqanaan jecelnahay inaan qaadanaan jecelnahay macnaha laakiin qofkayga hadduu waxado qofkayga hadduu dembi sameeyo qofkayga hadduu qof dhaawac u geysto haddaan difaaco xukuumadda aan eedeeyo aan dhaho cadaalad ma aha sax ma aha taas waa in adiga laftaada ay kaa timaadaa talabaadna ogow dadka madaxda ah waxay noqdaan shacabku wuxuu yahay carabtu waxay dhahaan alinaau bima fiihi yandaxu macnaheedu waa maxay wal walba waxa uu macnaha ka soo duxa oo ka soo baxa waxa gudihiisa ah dadkina hadday xun yihiin oo dad ay yihiin aan cadaalad ku dhaqmaynin munaafiqiin ay yihiin dadka ka soo baxaya waa ayagoo kale waaye waa dadka maanta haysana kuwa lamidka ah waaye hadda fiir waxaan leenahay oo in wax la xadaa waa dembi waa la eedeynayaa hebel waa tuug heblaayo waa tuug baliis waxaa laga yaabaa qofka waxaday inaa u sacabtunta adhahdo wallahi ninka waa libaax u ahaa intuu meesha uu jooga lacag badan u qaatay lug macnaha nifaaqan ka hadlaya fiiri of course marka dhibkan haysta soomaalida runtii social justice aan u baahannahay waxaan ninka sheekeynaya maanta ka sheekeynaya kuwa banaanka jooga kuwa jooga ma markooda qof markasta ka faa'iideysan marka taasi waa mid marka halkaas ugu bixinaa arrinta Soomaalida haddana waxaan galeynaa qaybta saddexaad ee ugu dambeysay barnaamijkeena waxaa maalmaha social media ka socda fadeexad weyn oo gelgelisay suuqa technology intii uu socday bandhiga Goldplay ee lagu qabto magaalada Boston ayaa kaamirada loo yaqaano kiss camera laakiin anaga Soomaalihan camera waxa bixinaa camera faleska waxay soo qabatay laba qaf oo isdhunkana oo just jacayl loo maleynaa laakiin isla markii la ogaaday labadoodaba inay mid ahayn marka taas ayaa kalena marka maxaa dhacay bandhigii Goldplay ee sababay fadeexadaasi sida weynta dadka u wada hadleen horta qadyadan iyada ah sababtan usoo qaadanaysaa xustay waa calaaqad waxay ku leedahay teknolojiyadda calaaqad waxay ku leedahay social media because social media adduunka oo dhan ayaa aad uga hadlaya maaha keliya Soomaali bis maaha marka iyadoo tag ah iyadoo social media ah waa inta qasabtay inaan ku soo qaadano barnaamijkan isaga ah Coldplay waa bandhig faneed la sameeyo macnaha meelo badan laga sameeyo hadda waxaa lagu qabtay saa xustay waa Boston dad badan isugu yimid waxay sameeyeen wax loo yaqaan kiss cam oo macnaheedu tahay camera waraagaysa oo raadinaysa lamaanayaal isjecel oo acting caab aan adiga shuqul gaaleed wax sameynaya
إسلاميا وحبنا معها وحنكسن معها ورقم في عنها معها على أي حال كاميرا أي واحد سوق بتي لبا معناها قفود أو سكودجن أو لليه waxa ka dhaxay wax jecel oo kala ah صح marka somehow markii هذا kaamirada ay qabatay macnaha kaamirada waxa ku dhagan screen ama shaashad TV kaasoo kale aad u weyn isla waqtigii naagtina way naxday ninkana wuu naxay كجن باك دعنا naagta maxay samaysay wejiga gacmaha saaratay inuu qofka markuu saa sameeyo maxaa laga wadaa macnaha waxay dareemayaan waa shame they're too small ilaahu dhulka ma ila go'o meesha in la dhihi jiray wejiga gacmaha saaratay waana sii jeysatay ninkiina muxuu sameeyey intuu naxay ayuu fariistay so markii la soo qabtay kaamirada gabadh kale agteeda taagnayd oo duubaysay adiga HR la dhahay markii koowaad laakiin hadda markaan dhageystay newska iyada hataa ay hadashay shaqo ma ku lahayn oh she was the macnaha waxay la yaabtay dadka markii kaamirada ay qabatay naxay صح ninka meesha fanaanka ah wuxuu dhahay ma taqaanaa look macnaha these two markaasa markii ay xishoodeen wuxuu dhahay lama mid waaye ama they cheating or they're very shy macnaheedu waa maxay ama khiyaamay samaynayaan oo shaashada ay ka soo baxeen dadkii lamaanayaashooda arkaya oo ay ka baqayaan oo haddii kale waa xishood badan yihiin labadii mid ay noqotay gabadha markii aragtay inay saa sameeyeen iyadana waa ka duubatay online ay soo dhigtay markii ugu dambeysay waxaa daawaday 90 milyan 9 milyan oo qof saacaddan waa kasii bata laga yaabaa marka arrinta dhacda taasoo kale ahayd waa arrin fadeexaday noqotay adduunka ku macnaha ku faaftay waxaana keen waxay tahay ninka ayaa wuxuu ahaa dabcan waa ka sheekeyn doonaa nin caan ah loo yaqaan oo shirkad caan ah madax ka ah okay cool marka maxay qabataa shirkaddan Asnod meeqaana lagu qiyaasaa yani hantidooda shirkaddan horta Astronomer waa sababta u soo qaadanay waxay calaaqad ku leedahay waa IT waxay samaysaa waa data waxa laga wadaa xogta صح hada misaal markaa fiirisid adduunka xogta ama daytada waxyaalaha ugu badan oo adduunka hadda aad u soo kobcaya la kaydinayo shirkadaha hadday noqoto macnaha enterprise corporate macnaha dhammaantood waxay hayaan xog aad u weyn xogta waxaa loo baahan in laga shaqeeyo la shandheeyo la qurxiyo la hagaajiyo laga sameeyo warbixin xasaasi ah marka shirkaddan waxay ku takhasustay in xogta noocaas oo kale ay system u samayso website ay leeyihiin tools ay leeyihiin waxay sameeyeen data pipeline data analytics waxyaalo badan noocaas oo kale ah waxaa la asaasay 2015kii ilaa 5 qofood meelahaas asaastay muddo fog ma aha laakiin lately ayaa waxay noqdeen wax loo yaqaan unicorn unicorn macnaheedu waa maxay waa state companiga uu soo gaaro marka uu helo lagu qiimeeyo 1 billion ama ka badan so 2025kii hadda aan ku jirno ayaa lagu qiimeeyey macnaha 1.3 billion waa hanti aad u badan waaye so waxay ku guuleysteen in ay noqdaan unicorn oo ah special status oo loo yaqaan shirkadaha lagu qiimeeyo 1 billion iyo wixii ka badan marka waa shirkad runtii hadda aad u soo caanbaxday oo startup ah laakiin aad u soo xoogeysatay oo ka shaqeysa daytadii waqti yar ay ku gaareen meel dheer ku gaareen marka waa kuma ninkan la dhahayo Andy Barry muxuuna ka ahaa shirkadda Andy Bryan ninkan isaga loo yaqaan horta shirkadda wuxuu ka ahaa CEO waxaa loo yaqaanaa waa chief executive officer haddaan Soomaalihan ku sheego waa madaxa shirkadda madaxa fulinta المدير العام wax loo yaqaan ama رئيس التنفيذي عربي ahaan wax loo yaqaan laakiin ma taqaan hadda social media waxa laha qosolka waxa loo bixiyay Chief Executive Officer It's a nice title commentiga marka commentida afirisid marka ninka isaga wuxuu ka ahaa shirkad madaxu ka ahaa wuxuu ku soo biiray 2023 waxa la yaabka waxa waaye bishii July ku soo biiray bishii July oo 2025na waa ka tagay within a year within 2 years within 2 years like was same month was same coincidence yeah marka ninka waa nin wuxuu ahaa CEO ah waa nin wuxuu ahaa runtii shirkadda soo gaarsiiyey meel aad u weyn wuxuu sameeyey inuu hanti cusub oo macnaha maalgashi cusub uu helo ilaa 93 milyan waana sababta keentay in lagu qiimeeyo 1.3 macnaha bilyan marka labadii sano uu joogay runtii wuxuu sameeyey wax qabad aad u weyn wuxuu ahaa nin mushaarkiisa uu aad u badan yahay ina meequu qaadanayay 600,000 a year no only that wuxuu ku lahaa investment boqolkiiba 1 ilaa 5 waxaa lagu qiyaasaa hantidiisa uga jirta meesha ilaa iyo 50 to 70 milyan والعقد aad u badan waaye so marka yani waa maxay waajibka ay Christian Cobot ku haysa shirkadda ayada
كريستين وقبرن قبر ما هو اسلام واي I mean yeah well somebody's house yeah سلانتن ومعناها لا سعودي ها. يا لو يقانا كريستين وحي هيد هو سي بي او معناها هو تشيف بيبلز اوفيسر هذا سكر وشيغو وحي قابش انت هو اتش ار هيومن ريسورسز yeah الشؤون الموظفين يا شغالها شغالها قابش انت هاي وحي كسو بيلتي 2024 ان وحي هاي مدحه معناها اتش ار ان مدير جوجتي ان نينكا يدا وحا كدحيي علاقه قرصوديه صح. sida muuqanaysa muddo soo socotay adiga waxa la inta badan waxay dhahaan work wife horta waxaa la haddaan ka hadlayna waa ka dhacaan inta badan dina markii lacag iyo power ay timaado waxaa la haddaan ka hadlayna waa common yeah common waa la qariyaa waa under the carpet under the table Until, runtii way badan yihiin tanna ma muuqan lahayn unless kamerada qaban lahayd maaha dadaa waxay leeyihiin kamerada waxaa ka dambeeyey xaaskiisa way ogeyd inay ka shiftay u baahnayd babababa wax noocaas oo kale ah laakiin hadda wax muujinaya ama cadaynaya taas ma hayno marka anyway arrimahan way badan yihiin way dhacaan yacni saameyn badan miyay markino shirkadda ku yeelatay shirkadda iyo haddii iyo ani labadooda saameyn miyay ku yeelan kartaa arrintan sida yeah saameyn aad u weyn ku yeelatay because shirkadda waxay heshay waa image like negative magaceeda markii uu suuqa soo galay astronoma aada u caan baxday newska ka hadlay jaraa'idka ka hadlay social media looga hadlay laakiin waxay ku soo caan baxday ma aha wixii saxda ahaa wayna hadleen way sheegeen dabcan in ay shaqo ku lahayn waxaas ninkan isaga ah you know marka 15 seconds adduunka dhan ku weyso waa dhibaato soo maaha ninka hadda 15 seconds kamerada firi waa 15 seconds waa 15 seconds ayaa wuxuu ku waayey familkiisu waayey xaaskiisa weli gabadha u qabay markaa dhinac dhigto naagta hadda uu ku khiyaamayey waa kaafi kala dheeri waaye ragga qaarkood ma aqaan wax ka qaldan ilmihiisu waaye dabcan dacway hadda bilowday oo inay divorce iyo wax noocaas oo kale ah hantidiisii haaf waaye shaqadiisii 600 oo kun ahayd ayuu waaye sumcadiisu waaye shaqo kale xitaa mustaqbalka suu ku helaayo adkaanaysaa marka 15 seconds ayaa wuxuu ku waayey wax aad u badan marka saameyn weyn ku leedahay marka laga eego yacni dhanka fadeexadda heer ahaan labada famil sidee afkad kareen hadda tan yacni afar qof laba kala noqday maahan way kala baxeen gabadha naagta nin baa qabay sida la sheegay oo adiga horey usoo gursatay ciyaala u joogay ninka la hadda gursaday oo qaba dabcan taa waxay keenaysaa inay single ku soo noqdaan markaa kommentiyada aad fiirisid macnaha waxaa leeyahay coldplay cameradan kiis camera hal habeenay waxay ka dhigtay 4 qofood singles dad lamaana ahaa oo xasas ahaa oo famil ahaa ayaa habeen kaliya waxay noqdeen maxay in ay noqdaan dad kaligood ah marka iyo psychology ahaan bas waxay keenaysaa in qofka hadda mithaal markaa fiirisid ciyaalkaada daawanaya dadkaada daawanaya mustaqbalka dadka isleedahay hataa wax la wadaag ayaa daawanaya qofka haddii waxa lagu qabtana in la aaminaa waa aad u adag tahay aad iyo aad marka waxay u keenaysaa dhibaato iyo psychology ahaan dhaqaale ahaan sumcad ahaan aad iyo aad u weyn that's it well hadaan soo gaartay waa mahadsantiin intaas waxaan nooga barnaamijkeena caawa fadlan haddii markaada ku wataan nagu soo bir comment-ka nagu wadaag waxaan u mahad celinaynaa engineer Cabdiraxmaan oo bahanad siin joogay marka next time sidaa iyo nabadgelyo